kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale barnaamijkeena falanqaynta wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan qodobada aad ku maqli doontaan wararkeena ciidanka dalka Masar ayaa xuduudda Liibiya la geeyay isla markaana taliyaasha ciidanka qalabka sida dalkaasi ayaa abaabulaya dagaalkii ugu cuslaa iyadoo halkaasi uu gaaray taliyaha ugu sarreeya ciidanka lugta iyo guud ahaan ciidanka dalkaasi Masar dalka Turkiga ayaa iyaguna sheegay in ciidankooda dalka Liibiya jooga ay kordhi doonaan isla markaana diyaar u yihiin inay ka hortagaan tallaabo kasta oo dalkaasi Masar isku dayaan inay ku soo daandaansadaan dalalka midowga Afrika iyo ururgoboleedka IGAD oo warkaduwan wararkii dalalka reer galbeedku ay ka soo saareen qadiyada dalka Soomaaliya iyo xaaladaha siyaasadeed dalka soo saaray waxyaalaha ay ku tiraabeen ayaa idin haya Azerbaijan iyo Turkiguna tababar military iyo dowladtuska ugu weynaa ayay soo bandhigayaan iyadoo ay xiisadii dalka Armenia kala dhaxaysay Azerbaijan ay darsanayso NASA waxay ku dhawaaqday in ay dayax-gacmeed kubadda oo kale ay diri doonto iyadoo sheegtay in ay doonayso inay adduunka ugu horeyso dhinaca tiknoolajiyada marka ay noqoto qodobada kale aad ku doontaan dalka Sacuudiga wuxuu celiyay dawladda dalkaasi Mareykanka sida ay u badbaadinayaan arrimaha gobolka iyo amniga dalka Saudi Arabia saraakiisha militariga dalka Mareykanka ayaa jooga iyaguna markaasi magaalada Riyadh kadib markay ka soo kicitmeen Doha qodobadaas oo kale aad ku maqli doontaan wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda oo 18 bishii Luulyo waa 2020 waa maalinimo daawashada qiimaha la saarisa oo markale barnaamijkeena falanqaynta wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda aan ku bilaabo isla markaana ugu horeysay wasiirka arrimaha dibadda dalka Spain ayaa waxa ay sheegtay in dawladeedu ay u aragto dalka Turkiga mid ka ballaaran saaxiibtinimo iyadoo wareysi gaar ah siinaysa wakaalada wararka Anadolu Agency oo wareysi kula yeelatay iyadoo joogtay magaalada Ankara ayaa haweenaas waxay sheegtay in dalkeedu uu sii wadi doono calaaqaadka dhow ay leeyihiin dalka Turkiga iyadoo ku tilmaantay in gaashaanbuurta NATO waxa ka dhaxeeya gaar ahaan dalka Turkiga iyo dalalka kale gaashaanbuurta NATO ku jira ay ka ballaaran tahay saaxiibtinimo oo ay tahay ayay xuluufanimo dhaba waxay tiri marka Turkiga ka hadlaysid ma oran kartid waa xuluuf ma oran kartid waa saaxiib kaliya laakiin Turkigu waa xuluufo dhow ayay tiri xuluufo macnaheedu waxa weeye way ka salbalaaran tahay ama waa la soo dhow yahay saaxiibtinimo ayay tiri waxa ay sheegtay in ay saaxiibtinimada dalalka ka dhaxaysa ay muuqatay xilligii lagu jiray xanuunka faafaha daran Arencha Gonzalez Laya waxay wakaalada wararka Andrew sidoo kale uga warantay halka dawladeedu ay ka taagan tahay qadiyada gantaalaha difaaca ee dalkaasi Isbaaniya ka yaala dalka Turkiga waxayna sheegtay in ay xoojiyaan mooyaane aysan jiri doonin dib ugu noqosho gantaalaha difaaca ee halkaasi naga yaala iyo qalabka kale baytariyada waxa ay hadoonaan koo lagu difaaco weerar kasta oo dal saddexaad uga yimaado dalka Turkiga ayaa lagu yiri waxay sheegtay inay la kulantay dhigeeda dalkaasi Maflet Kafs Oglu waxayna ku tilmaantay in kulankooda uu ahaa mid miradhala waxay sidoo kale sheegtay inay 10 jeer wada hadleen intii faafaha daran dalka Spain la dala dhacayay waxay tiri marka aad rabtid in aad ka hadashid arrimaha u dhaxeeya qaaradda Yurub iyo dalka Turkiga waxa weeye ayay tiri wax u baahan isfahan dhamaan dhinacyadu waxay qabaan xasaasiyad ku saabsan arrimo dhowr ah oo ay kamid tahay tan Liibiya laakiin qoloba sibay arrinta u fahantay ciyaartuna fahankeedu maaha ayay tiri in la is eedeynayo ee waxa weeye in la is fahmo oo qolob waxay rabto ay si wacan u sheegato kadibna la is dhageysto kolka aan la yimaado xal hore looga socdo ayay sheegtay Mr. Laya waxay intaas sheegtay in dalkeedu mar walba dhexdhexaad ka yahay arrimaha qaarkood sidoo kale waxay ku tilmaantay in go'aanka masaajidka Hagia Sophia ay tahay arrin u taala dalka Turkiga oo ah masaajid ku yaala gudaha bay tiri dalkaasi waa dhismo ku yaala bay tiri gudaha dalka Turkiga sida daraadeedna anaga boos nooga banaana inaan faragelino ama ka hadalno qadiyada arrintaas ku saabsan arrinta dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Turkiga Maflet Kafs Oglu oo dhinac taagnaa ayaa sheegay inuu mar kale ugu celinayo dawladda dalkaasi Greek inay fahanto in dagaalkii lagu kala adkaaday 500 oo sanadood ka hor uusan meesha oolin wuxuu yiri Greegu waxa aan la yaabanahay sababta ay calankooda hoos ugu dhigeen markii Hagia Sophia lagu tukanayay ayaguna tacsiib ay dhigteen ayuu yiri oo calankooda hoos u dhigeen wuxuuna sheegay in magaalada Istanbul la kala qabsaday 500 oo sanadood ka hor kadib markii dadkii lahaa ay iska tuureen reeriyada dawladii dusha ka saarneed ee Byzantine Empire ayuu ah boqortooyadii Greek asalkeedu ahaa ee halkaas maamulayay wuxuu sheegay inaysan taa macnaheedu ahayn meesha ayaan mar haysan jiray ama ka tali jiray waan leeyahay oo mustaqbalkeeda aan iskale wuxuuna sheegay in dhismaha UNESCO ay aqoonsatay sanadkii 1985 kuna dartay goobaha caalamiga ah ay noqon doonto sideedii laakiinse waxa uu ku saayiday ee tahay in loo ogolaado cibaadaystayaasha muslimiinta halka dagala socotaan wararkii wacala dhinaca diblomaasiyadda caalamka daawashana qiimaha leh waxaad ogeedeen maalmihii ugu dambeeyay oo dhan in dalalka reer galbeedka ay siyaabo kala duwan ay uga hadlayeen arrimaha siyaasadda iyo arrimaha hanaanka doorashada sidoo kale
xilka qaadistii ama kalsooni kala noqoshadii ra'iisul wasaaraha ay kala noqotay baarlamaanka ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre dalalka midowga Yurub war qoraal ay soo saaray madaxda guud arrimaha dibadda Joseph Borrell iyo safiirka ama safaaradda dalka Mareykanka u fadhida dalka Soomaaliya ayaa waxay labadu ahaayeen kuwa hadallo adag lagu soo qoray waxa sidoo kale ka dambeeyay adeegeydeen hadal ka soo baxay golaha wasiirada dalka iyo ra'iisul wasaaraha ku-meel gaarka dalkaasi Mahdi Guleed oo labaduba ugu baaqay dalalka in ay faragelinta ka joojiyaan Soomaaliya isla markaana waxtar kasta uu noqdo mid ku dhisan ilaalinta qiyamka iyo sharafta guud ee Soomaaliya ayadoo gorsii horeysay madaxweynaha Puntland uu asaguna ku baaqay in faragelinta ay dawladuhu ay noqoto mid la taaban karo oo aysan hadal marka wax dhacaan laakiin ay ku dhiiradaan inay marka hore go'aanka wax ku yeeshaan haddaba golaha midowga African Union iyo golaha maamul goboleedka IGAD ayaa warmurtiyeedka ka duwan arrinta ka soo saaray golaha labada gole war qoraal ay soo saareen ayaa waxay ku nuuxnuuxsadeen qadiyada in laga heshiiyo doorashada iyo in ay noqoto wax loo daayo arrimaha gaarka ah ee Soomaalidu inay sida ugu hufan ayagoo qabsadaan warmurtiyeedka African Union soo saaray iyo maamul goboleedka IGAD ayaa la sheegay in lagu xaqiiqsan yahay ama lagu gartay ayaa la yiri loo gartay ayaa la yiri in waxyaalaha ka dhiman Soomaalida hogaamiyashadu ay dhameeyaan oo ay ka mid tahay ayaa la yiri in ay diiradda saaraan in doorashada laga wada tashado oo dhinacyadii ku kulmay magaalada Dhuusamareeb ay si anba qaadaan wada hadaladii ay ku balmeen bartamaha bisha dambe taasoo ah in la isku raaco qaabka doorashadu ay noqon doonto oo aan ilaaha dirta la isku raacin ciduna aysan ka soo saarin heshiis waxa la isku raacsan yahay ay tahay in doorasho unay dhacdo waxa lagu qoray in sidoo kale la dhameystiro shaqooyinka ay ka mid tahay la dagaalanka kooxda al-shabaab lagu yiri warmurtiyeedka waxa lagu yiri in la dagaalamo xarakada al-shabaab isla markaana dalka laga buriyo waxa ay muhiim u tahay ayaa la yiri jiritaanka nabad waarta oo dalka ka soo naasacadaata sidoo kale dib u eegista dastuurka waa shaqo u taala Soomaalida inay dhameeyaan gaar ahaan hay'adaha dawladda federaalka waxa sidoo kale loogu baaqay in ay dawladdu ay dib u eegis iyo dhameystir ku samayso arrimaha ay ka mid tahay guddiga xuquuqul insaanka iyo maxkamadda sare ee dastuuriga dhammaan kuwaas oo dhan ay shaqooyin u baahan inay qabtaan sidoo kale waxaa la sheegay inay muhiim tahay in maamulka dhinaca ama gacanta ugu weyn inay yeelato markay noqoto arrimaha doorashooyinka baarlamaanka dalka oo iyagu sharci dejiyaasha hay'adda ugu sarreeyay dalka marka ay timaado ayaa leeyahay waxa aan la soo hadal qaadin haba yaraatee xilka qaadistii ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre isla markaana waxa ay u muuqataa in dalalka African Unionka ku jira ama qaaradda Afrika iyo sidoo kale IGAD ay ka gabagabsadeen in ay ku talax tagaan arrimaha gudaha ee Soomaaliya taasoo dalalka reer galbeedka maalmihii ugu dambeeyay oo lagu baaqayay dalka Mareykanka ayaa la sheegay in indhaweetaba uu ka lug jiidayay arrimaha dhinaca doorasho la sheegay in ay noqoto one man one vote ama hal cod iyo hal qof oo ay dawladdu ay ku taagan tahay gaar ahaan baarlamaanka oo iyagu sheegay inay taas tahay shuruuc ama sharci dalka loo ansixiyay cid wax ka bedeli kartaa aysan jireyn dhinacyada ayoo dhan ayay ugu dambeyntii warmurtiyeedka ugu baaqay inay ka wada shaqeeyaan geedi socodka iyo dhameystirka waxay ku tilmaameen horumarka ballaaran ee dawladda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed ay si wada jir u ducduuceen uguna tallaabsadeen in ay waxtar u yeelato mustaqbalka dadka iyo dalka Soomaaliya hagaag dalka Afrika ugu maalka badanna ama dalka ugu horumarsan Afrika waa dalka Koonfurta Afrika ayaa waxa asagana u dalbaday deeq gaadhaysa 4.3 bilyan oo dollar oo kula diriro xanuunka faafaha daran ee dalkaasi halakeenaya taasoo uu ka dalbaday bangiga lacagta adduunka ama hay'adda lacagta adduunka ee International Monetary Fund IMF ayaa sheegtay ugu dambeyntii inay ansixisay lacagtaas isla markaana dalka Koonfur Afrika loo ogolaaday inuu iska caabiyo xanuunka wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dalka Koonfur Afrika ayaa sheegay in lacagtan ay waxtar weyn ay tari doonto Tito Mwanwani waxa uu sheegay in dhaqaalahan ay noqon doonto mid kor loogu qaado dhaqaalaha dalka oo laga baqayay inuu hoos u dhac aad weyn ku yimaado kadib markii la saadaaliyay in boqolkiiba 7.2 laga yaabo inuu sanadkan dhaqaalaha horumarka ee dalka qaaradda Afrika ugu dhaqaalaha roor uu leeco waxa waaxda dhinaca la yiraahdo South African Centers for Disease and Control and Prevention ay sheegtay in dad gaaraya 445,000 oo qof ay dalkaasi xanuunka u hayo waxaana sheegeen in dhaqaalaha dalka wax yaraan iyo shaqooyinka gabaabsi ah ay keentay in dhaqaalahan haatan ay dalbato Koonfur Afrika
هاج داودشنا قيمها لي فرق مقدنا wararka walaha dhinaca daraasad qodobo warbixino waaweyn oo kala duwan ayaa inoo soo socda haatan aan fiirino qaramada midoobay iyo dalka Yemen oo bariyihii ugu dambeeyay dhan qayladaan dhinaca gaajo xoogan oo laga soo sheegayo iyo macluusha si baahaysa dhalinyarada iyo shacabka iyo waliba caruurta yaryar ee dalkaas laga soo sheegayo ayaa haatan qayladaantii ugu dambeysay waxa soo saartay hay'adda cuntada adduunka WFP waxay sheegtay in ay intii ugu dambeysay ee cuntadii ay haysay gaar ahaan badarkii u haysay dadka reer Yemen ay ku quudinaysay ay idlaatay halka la sheegay in cunto kalena ay ka xumaatay kadib markii ay dalkaasi ka dhacday baleeri umi aad u kulul iyo cimiladu aad u xumaatay ee keentay in cunto badan ay bushaqdo si kastaba noqotay xaruntii duleedka badda cas ku taalay magaalada Xudayda la yiraahdo ayaa la sheegay in raashinkii uu ka dhamaaday taasoo laga quudinayay ku dhawaad 13 milyan oo qof oo reer Yemen oo baahan kaalmo degdeg ah haatan WFP waa barnaamijka cuntada adduunka qaramada midoobay u qaabilsan wuxuu ku baaqayaa in dalalku ay soo gurmadaan dalkaas isla markaana cunto la soo gaaro da'yarta iyo waliba caruurta haweenka iyo dadka barakacay ee dalkaas ayaa dhibaato xooggan ay ka taagan tahay sanadihii ugu dambeeyay ilaa 2015 ayaa diyaaradaha dagaalka ee dalalka Carbeed ugu horeeyay Sacuudiga ay garaacayaan magaalooyinka waaweyn ee dalkaas isla markaana isku socodka kabayaasha dhaqaalaha dalka iyo sidoo kale wax soo saarka dalka ayaa hoos u dhacay u yimid dhibaatada kale waxa ay ka sii dartay kadib markii halkaas uu cagta mariyay ayax dhul beereedkii baabiyay iyo sidoo kale roobabka oo yaraaday iyo mararka qaarkood oo roob dabaylo wata intuu da'o oo qaado xalaale wixii agaba iyo wixii dalaga ee dadku ay beeranayeen hagaag daawashana qiimaha leh qaybta labaad ee wararka walaha dhinaca dawladda qeetay